السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن كسر بهذا عشر كنا أفرتن إلى وات برشدة تلمامها حرفها الفابيتا دغولياشا عشر كنا مانتا وعن كسر قادنا M إلا إيو S كسر بهذا. Now in this next section, you're going to learn M مانتا through وعن S. قادنا M إلا إيو S. M. I like to think of the cursive letter M waxay ka kooban tahay 3 humps. saddex farood iyo suulka oo hoos u laaban. M. M. N. I also like to think of the N waxay ka cursive kooban letter tahay N. labada farood ee humps, murdisada iyo farta 2 dhexe fingers. oo la isku soo laabay N. suulka hoos laga mariyay. N. O. You're making the shape O of an waa O. sida shape O. ama calaamad O. P. Remember that P A ayada that we waxay ka had kooban before? tahay It's farta just murdisada iyo upside farta down. dhexe oo la kala P. horeysiinayo P. Q. Remember Q. that G that we did before? waxay Put it la mid tahay facing down. sida Q. farta murdisada iyo R. suulka oo hoos loo dhigay. R. Your 2 fingers R. are twisted R. around each other. R The back waxay ka is kooban the tahay middle finger farta and the index is dhexe the iyo front farta finger. murdisada oo R. kala horeeya. R. S. S. Your thumb S is in iyana waxay ka front. kooban tahay suulka Note that it's iyo not to the faraha side like the afarta A. farood oo saan loo soo Thumb laabay goes in kadibna front. suulka loo dul saaray S. S. Okay, let's review. M, hadda waa aynu N. dareerinaynaa qaab akhris O. ahaan. P, Q, R, S. All right, now voice off. haddana sidii inagoo aamusan ayaan u akhrinaynaa. All right, a little bit faster. waxaan u akhrinaynaa si aamusnaan oo haddana oo boobsiis ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeena maanta oo ku saabsanaa alfabeetada ka bilaabanaysa M ilaa iyo S. barnaamijka waxaa taabagelinaya ilma xaaji cabduqaadir maxamed aadan baari oo allah u naxariistee. intaan barnaamijkan ku kulmi doono nabadgelyo.